بسم الله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسيgan ugu dambeeya waxaan ku talagalnay inaan dhalinyarada uu ku wajahnaado wuxuu ku saabsiisan yahay dhalinta iyo cilmiga ama taxadiga cilmiga ee waddankan ka jira. dhalinyaranimadu waa wakhtiga nolosha ugu fiican ee qofku uu haysto. waa wakhtiga uu qofku wakhtigiisoo dhan isagu leeyahay. qofku markuu sii weynaadaba waxyaabaha ku xidhan iyo bii'ada ku xeeran iyo mashquulka ku xeeran baa sii bata. laakiin markuu dhallinyarada yahay waa wakhti uu korayo caqli ahaan, jidh ahaan, aqoon ahaan, garaad ahaan, si walba xagga koritaanku u socda. waa wakhti runtii u baahan in si fiican looga faa'iidaysto. waa wakhtigaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo allahu aladii khalaqakum min dacfin ثuma jacala min bacdi dacfin quwa ثuma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba yakhluqu maa yashaa wa huwa alcaliimu alqadiir. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa idin abuuray baa la yidhi inagoo dacfiya ku sugan, dabeetana awood buu ina siiyey, kadib baa haddana dacfi dambe uu qofku u noqonayaa. dhalinyaronimadu waa wakhti muhim oo u baahan in si gaara looga faa'iideeyo. walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa aakhiro su'aalaha dadka la weydiinayo 4 su'aalood baa jira oo qofku aanu ilaahay ka hor dhaqaaqaynin, qof waliba inuu ka jawaabo mooyaane. 4taas su'aalood 2 ka midi cimrigay ku saabsiisan yihiin. qofku wixii uu wakhtigii uu noolaa muxuu ku qabtay cumrigiisii. haddana su'aal gaaraa sii jirto ku saabsan dhallinyaronimada. wa can shabaabihi fiima ablaah, dhallinyaronimadiisii qofku muxuu ku bixiyey. haddaba wakhtigani waa wakhti aada u muhim oo u baahan yahay dadka dhallinyarada inay si fiican uga faa'iidaystaan. dhallinyaraduna waa mustaqbalka ummadda. ummad walba dhalinteedu siday u eg tahay ayuu mustaqbalka sugayaana u egyahay inta badan. waa waxa isku xidha baynu leenahay awowyada iyo aabbayaasha iyo mustaqbalka dambe soo socda. waxaanan ka warramaynaana waxa weeyaan dhulkan aynu joogno iyo sidii wax loo baran lahaa. culamada muslimiintaaba waxay yidhaahdaan war haddaad adduun doonayso bay yidhahdeen, adduunyo haddaad doonayso waxbaro facalayka bilcilm. aakhire haddaad doonaysana facalayka bilcilm. aakhire iyo adduunba markaa waxaa lagu helaa waa aqoon. qofkii adduunyo doonaya waxbaraa la yidhi.